Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran channelka Sharmasheek kusoo dhawaada cashar faa'iido leh. Maanta waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo Microsoft Word taasoo barnaamijkeena muhiim u ah qorista dhaqaalada dukumeentiyada iyo warqadaha rasmiga ah. Haddii aad tahay qof cusub amba aad doonayso inaad xirfad u yeelato Microsoft Word, videogan adiga leh waxaad si sharaf leh kaga codsanaa channelka inaad subscribe noo saarto, like, share, comment, intaasna waa dhiirigelinteena. waxaan haddana waxa u guda gali doonaa cashirkeeni insha Allah. Okay, haddana waxa guda gali doonaa xeedurtii Microsoft Word-ka. haddii aad rabto inaad Word aad isticmaasho waxa qori kartaa search-ka tigaysaa. haddii aad rabto inaad soo kiciso Microsoft Word waxaad tagaysaa search-ka dhowr qaybood ayaa loo soo kiciyay. haddii aad rabto inaad isticmaasho Word waxaad soo kici kartaa dhowr qaybood dhowr siyaabood. mid ugu horeysa waxay tahay inaad meel bana right click aad ku siiso, aad ka doorato xeedurtii new, kadibna aad dhahdo Microsoft Word document. saan aad ku soo kacso documentigaada kadibna aad isticmaasho. mid koowaad waa talamaad waa inaad search-ka aad qorto Word. waa kana saan aad ku soo kacso Word-kaada. labadaas qaybood qaybo badan loo soo kiciyaa, laakiin labadaas qaybood ayaan maanta baranaynaa oo ah haddana waxa guda galaynaa Word-ka. waa kana Word-ka guud ahaan sidaan ayuu shaqeeyaa. in dadka aad soo furto shaashaddan ku soo maqanayso waxaa loo yaqaanaa start screen oo ah waxa ku jira faylasha aad isticmaasho kulli aad diyaarsatay. laakiin si guud hadda Word-ka aniga ima shaqeynaa sababtoo ah activate ayuu u baahan sidaa darteed ma ii shaqeynaa. aan hadda waxa isticmaalayaa online ayaa ku isticmaalaya Word-ka si aan si guud aan ugu fahanno. horta kan iska dalad MS Word free waa kana code ayuu weydiinayaa. code ayaa soo gelinaya kadib ayaa soo laabanayna. okay, Word-ka markaad soo samaysto hadda waxaa leedahay sida dal camal ay kugu soo noqonayaan oo inta start screen camal ay u shaqeynayaan xeedurtii markii offline ku isticmaalayso. kan muhiimadda wuxuu inaad Gmail haddii aad ku xirto caadi aad u isticmaali kartaa, xogaa kaagama baahno. horta guud ahaan horta Word-ka waa maxay Word-ka waxa ku hadurtii waa application ku ogolaanaya inaad ku abuurto dukumeentiyada kala ah application, new paper, invitation, letters, CV, report, table, design iyo kuwo kale fara badan. maanta halahaas ayaa hordhac u baranaynaa Word-ka. waxaan noqonayaa cashirkeena xigo oo isbuucan gudihiisa waxaan rajeynaynaa inaan soo dhigano ilaa 4 video oo Word-ka kadib Excel ay u gudbeenaa. waxaan u baahnaa cashirkeena xigo sidaas nabadgelyo.